السلام عليك إخواتي، welcome إلى جنال إخواتي. إن حاني ولا عاوة على ما شاء الله إن قبليه نبرها لها وما شاء الله إن مدة بدن السجايا عندها علاب ونبرها إني كنايا وإني كان إخواتي قبلها أو علابتها محمد سنكرها قبلها حارها له قبلها نبرها له لكن وحي حق ما شاء الله وقتها لمبرون gabdhaha haaraha le gabdhaha nabraha le horta nabr meel ku yaala ma sha Allah way ka takhalusaysaa hal nabr oo meel ka soo baxay aan saan u saarnay ma sha Allah saacada kama soo wareegin marka nabarka meeshiisa uu ku baaba'ay maxaa soo haray haaraha gabdhaha waxaan haynaa yiri haarihii ma sha Allah total mintu taari inta soo bari gudaheed ay nooga dhamaadeen oo haari nooga baxeen marka ikhwaati aad alaabta oga helaysiin alaaba soo raadiye waa maasha Allah waqti badan iyo juhdi badan aan galiyay ilaahna waxaan ka rajeynaa in anfacada sayta hadda u yisgaraysiin maasha Allah wax easy waaye oo ma aragtay la heli karo kulay qof Soomaali uu heli karaa ana waxaan ka hadlaa waa gabdhaheena Soomaalida gabdhihiina nabraha la baynabran iga babatay wax kasto aan keeno way aan ficeen laakiin waa inta badan maxaan ku sheegaa wax oo ka keenay nijida badan ma arag gabdhaha haaraha in beesh gabdho waxay dhaheen 3 days asaga qaadna iyo 1 week asaga qaadna oo taas waaba keenay laakiin hadda midaan nabraha special ta gabdhaha haara isaga qaadina way jiraan gabdhaha haara way isticmaali karaan absolute 100% gabdhaha haara caawinay laakiin gabdhaha nabraha horta nabar way ka takhalusay waxana laguma gaaro ikhwaati 1 day iyo 2 days waxba laguma waxa waa inaad 1 week markaa wada aan jidada hele iyo wixii ka sii badan marka alaabtan waa alaab maxaan ku sheegaa ma sha Allah waa in tusaaya say taalo waatana ikhwaati inta waxa way hal xabba bataati barado gabdhaha bataati maxaa ka wadaay idhaa inta badan waa barado ama bataati ka taqaantiin waa karine saana ka dhigay bacqaasa ka dhigay alaab badan oo aan sameeyna baradadan way ku jirtaa alaabta baradada baka waa lighting waa ma sha Allah wajiga oo maxaan ku sheegaa waxaan dhan heesta dhan ay ka qaadaa kana waxa waaye ikhwaati waa xulbad shiidan xulbada aniga aad uga dambeeya ama cunid ha noqoto ama marsi ha noqoto waa waxaan ka bartay wadaadka ma sha Allah iyo kitaabka aad gabar xulbad ay kalin gareen wada wajigeeda qurux ka dhigi weyday max ka dhigi karaa ma jirto kana in ku cusub kan waa diinsi Soomaali wadankeena oo ka baxa antibiotic waa taqaantiin taas waa una nabraha u qalajina taas waa una nabraha u baabi'ina oo nabraha u ibr oga dhigaya oo waxa wajiga kusoo kordhay haaraha iyo nabraha oo la dagaalamaya diinsigeena waa la cabi jiro xanuunka qofka bararka iyo xanuunka loo cabi jiray ikhwaati asaga ka baqinina wajiga in la marsada la keenay aniga in la hadlaaya marsada gabdha marsadaya ma sha Allah dhahay haarihi iyo nabriba finish naga dhigan hayna ha ka baqinina gabar kasta way heli kartaa diinsi kulay Soomaaliya da joogtaan de waa ma sha Allah asoo fresh ah helaysiin anagoo Yurub joogna maktabadaha lagu gadaa qof kasta maktabadu ka helaya oo diinsiga marka waa isku daraynaa marka waxaan ku qasaynaa biyo kuma qasayno maa wardi biyaha rose water kan ku qasaynaa gabdhaha wajigooda u yahay darayga markay inta isku daraan waxay ku darsanayaan olive saliid saytuun ay ku darsanayaan laakiin gabdhaha wajigooda u darayga lahayn oo nabraha leh saliid saytuunku way iska reebayaan oo waxay samaysanayaan xulbada oo daray ah diinsiga oo daray iyo bataatiga oo daray ah wajigooda nak ay ka dhigaysaa markaas way toobaysaa nabarka dhanna banaanka u soo saaree diinsiguna antibiotic waaye oo inflammationka iyo waxa ku jira jirka oo nabraha ka soo bixinaya dhan la dagaalamaya bismillah ala barakatillah waa bilaabayna ikhwaati aan la socono bataatiga waa inuu sidaas ku ahaadaa xalwadaas camal ku ahaadaa marka taabato usas kuugu baabaa ma sha Allah oo ma sha Allah asaga is wada in adiga wadino qasabtin ma aha dabka u gaabi faraha ka qaad marka si fiican isugu dibridin oo si fiican u baaba'asatin asas ka dhigatin sas camal u baaba'asatin waxa sameynaysaa ma urdiga ku jilcinay ka bacdi xulbada soo qaadanaysaa xulbada way adagtaa ayadana waa taqaanay way fariisanay waa inaa markasta la qooyo la jilciyo biisa waxaan isticmaalaynaa hadda maa wardigi inta oo adiga maadaama aan ku qasayna biyo ayadan biyo oga dhigaynaa maa wardigan biyo oga dhigaynaa alaabtan bataati weyn hago samaysanina waa in ku badanaysaa waxa adiga ina 3 bari kasta hal mar samaysato ay fresh ku ahaato fridge gashato ku fiican marka waxa samaynaysaa bataatiga waxa ka dhiganaysaa mid yar ka dhiganaysaa xulbadi hadda hal qaado weyn oo xulbada iyo bar aan ka dhiganaynaa diinsiga asagana
hal qaado camal isticmaalaynaa oo aad u buuxinin saan waa ikhwaati dibendi wejigaaga wuxuu ku xiran tahay siduu nabro u leeyahay diinsiga wax yar haddaan ku kordhisato barbalayn male anaga waxaan aragnay xataa qof oo maxaan ku sheega waxaan ku jitaabinay wejigiisa nabar ka soo baxay diinsiga keligiis intuu qooyo nabarkii saara nabarkii dhan meesha ka go-ay ka baaba'ay uu finish ka noqday laakiin markaa aragto cunto u eg tahay laakiin cunto ma aha maasha allah wejiga markaa intaa jilciso aa mariso oo maxaan ku sheega hadhowta haddii xataa markaad finjeerka gelisatay wax yar kaa dhigto haddaa aa ku qoyso wax yaroo biyaa laa baasa xarash ma jiro hadalka ma jiro midaan inay nabrahan inay ka bi'inayso haarahan inay ka bi'inayso marka waxaan ku maxaa sameysaan mataqaana ikhwaati u samra wax kasta waa loo samraa xoogaa waan jilcinayaa way adag tahay gabdhaha oo maxaan ku sheegaa wejigooda saliida leeyahay oo nabraha leh ma isticmaalayaan olyoliibada wayna kusoo celinayaa gabdhaha oo wejigooda darayga yahay oo ama haaraha leh wejigooda darayga yahay ama sidooda darayga u yahay waxay samaynayaan hal qaado waxay ku darsanayaan oo olyoliibada ah laakiin gabdhaha wejigooda nabraha leeyihin oo nabraha lala dagaalamaayo nabraha waxba kama dhimayso olyoliibada laakiin waxaan rabnaa wejigii inaan horta marka horeto aan daray ka dhigno oon qalajino oon ka bi'ina nabraha markaan nabraha ka bi'ina kabacdi aan waxaan isticmaalaynaa maxaa kushe olyoliibada hadhow wejiga waa lagu masaajeyn karaa waa lagu dhaqi karaa quruxay ka dhigaysaa wejiga habeenkii aa ku seexanaysaan laakiin inta ka horeysa aanu isku dayna inaa maxaan ku sheegaa aan wejiga daray ka dhigno oo bacteriada wejiga kasoo baxday iyo inflammationka iyo waxaan ku kacsan wejiga aan ka dejino oo wejiga uu liisha ku noqdo qurux ku noqdo ku cad waxay kaloo xataa aan kaga yaabay maasha allah aan aad ugu jeclaaday alaabtan lightin ay ku siinaysaa qurux brighton waxaan u malaynaya wejiga saabun inaa ku dhaqday cadaysay ama wax lagu isku cadeeya amarsatay akhwaati waatana saasay noqotay maasha allah alaabtii saanay noqotay wejigaaga waa kana saanay ku noqonaysaa markaa marinaysin alaabtaas waxay noqonaysaa maasha allah da aada uga heli doontiin wejigaaga markaa marisin naacim waayo qurux maasha allah ugu yaraan waxaa ku haynaysaa 40 minutes ka badan daarabta waa ku haysan kartaa oo ku haysan kartaa 50 meelahaas laakiin ugu yaraan 40 badnaan 40 ilaa 40 ilaa 35 aa ku haynaysaa markay qalasho oo wejigaaga maasha allah uu noqdo aa ka dhaqee had dadka wejigooda uu daraaga yahay waxay samaynayaan waxay marinayaan wax yar oo liiba gacanta tamarsta wejiga dhaka ku siisanay dadka wejigooda uu dufan ka leeyahay farax ka qaadayaan oo maxaa ku sheegaa nabraha gabdhaha leh waxba ma marinayaan saasay ku joogayaan maalintii waxaa marsanaysaa 2 times at least waa inaa wadaa 2 weeks isku xigta say waxaan kaaga ba'aan wejigaaga kusoo kordhay oo la dagaalanto alaabtan ikhwaati maxaan ku sheegaa in haddaa asay intaan alaabtan alaab la soo jitaabiyey oo maasha allah gabdho badan ay kasoo celiyeen feedback waay oo lahaaya dadkii yirina waxaan lahayn haarihii dhan aan naga qaaday anina anaaba haayaba qof oo wejiga nabar ku lahaayo sasta uga saarnay uu nabarka ka ba'ay alaabtan marka waxaan ku dhahay gabdhaha nabraha leh oo markasta ii jira waqtiga wejigayga nabra leh waqtiga wejigayga la nabra leh wuu heli doonaa tan malaba ahayd in lagu daro ikhwaat waa ka reebay waayo gabdho badan waxaa jira dhaha xasaasiyaan ku nahay malabka taas waa oga reebay midaan malabka ikhwaati hadda midaan waa midii nabraha iyo haaraha khaaska u ahayd simir nabraha khaaska u ahayd insha allah cajaladaha soo socda waa sidee wejigeena u nafaqaynaa wejigeena si u nafaqaynaa muddo badan ma qaadan inta badan haare iyo nabre iyo shiny iyo whitening waxaas la dagaalamayni laakiin hadda waxa way wejigeena si nafaqa u siinaa aynii keenaa insha allah cajaladaha kuga cajaladahan saddex cajalo isla socota wejiga see loo nafaqeeya wejiga beauty qurux uga dhigtaa waaye laakiin inta ka horeysa waa inaad kasoo dhamaysaan wejiga haaraha iyo nabraha taasaa noo ballanay ani adinka markaasaa wejigiina sidii kale looga sii shaqaynaya اخواتي دانا لسه عجرتين لايك تابت هدي كلنا سبسكريب ولا لينك الاسو قدبيه عجلة آذى ومهستين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.